asalaamu calaykum. waan ku salaamay daawada meel walbo aad joogtid kusoo dhawow barnaamijkeennii taxanaha ahaa ee sirdoonka. sheekadani waxaa qoray xaatim quuri waxaana tarjumay oo afkeenna hooye u bedelay saaxiibkay cabdiraxmaan xasan anteeno. qaybtii hore waxay inoo joogtay shulaamid koohin markii uu soo gaaray macluumaadka ku saabsan in maxamed siciid xabsiga loo taxaabay, arrintaas oo si weyn uga nixisay islamarkaana muqaabaraadka sirdoonka lubnaan ay gacantii ay ku dhigeen. waxaa kaloo ay ka baqdin qabta haddii xog uu bixiyo in iyadana ay halis ay geli doonto, balse nasiib wanaag waxa arrimahaasi ku saabsan shabakadda kalama uusan hadlin oo gebi ahaanba waxa uu ku dadaalay inuu qariyo sirtii. qaybtaana waxaan ku eegi doonaa shabakaddii ultramodern ee basaasnimada. wakaaladda markii ay ogaatay xiritaankii maxamed siciid waxaa degdeg ay ugu wacday shulaamid koohin iyada oo laga wacay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. waxaa halkaasi lagu siiyey qorshe cusub iyo hab cusub oo wax looga bedelayo nidaamkii hore oo ay ku shaqayn jireen, iyadoo sidoo kale awaamiir cusub la soo siiyey. waxaana lagu amray in shabakad cusub ay aasaasto, taasi oo u howlgeli doonta qaab ka duwan sidii midii hore oo ay iyada hoggaanka u haysay. waxaa intaasi u dheeraa in la soo siiyey qalab kasta oo ay u baahneed in shabakadaasi ay ku waxaana ugu horreeyay qalabka ay sirdoonka ay ku wada xiriiraan, islamarkaana ay adag tahay in wakaaladaha kale ay dhegaystaan hadaladooda iyo agabyo kale oo muhiim u ahaa howlgalkooda sirdoonka. amarka cusub ee shulaamid koohin wuxuu dhigayay inay soo aasaasto shabakad cusub islamarkaana lagu tiirsanaan karo, taasi oo wakaaladda ka caawinaya warbixinta iyo siraha ay u baahan tahay si ay u daciifiyaan awoodda sirdoonka ee dowladda Lubnaan. waxaana shulaamid koohin ay dib ugu soo laabatay magaalada Bayruud ee caasimadda Lubnaan, iyadoona qalabkii ay wakaaladda kula xiriiri lahayd ku qarisa mid ka mid ah darbiyada gurigii ay deganeed, kaasoo ka dambeeya sawir weyn oo boor ah islamarkaana guriga ku dheganaa si aanan loo fahmin. shulaamid markii ay magaalada Bayruud ay ku soo laabatay waxaa durbe ay bilowday inay ka howlgasho raadinta canaasiir cusub kuwaas oo ka mid noqon doona shabakadeeda. waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid a ninkeeda Yuusuf Kashka ay weydiisay haddii uu yaqaano shakhsi suurtagal ay tahay in siraha dowladda Lubnaan uu u soo ogaado. shulaamid oo ninkeeda Yuusuf Kashka la fadhisa ayaa waxay ku tiri, ma jira qof ka tirsan dowladda Lubnaan kaas oo wax ka ogaan kara siraha qarsoon ee dowladda Lubnaan. Yuusuf Kashka durbadiiba waxa uu fahmay muhiimadda ay u leedahay su'aasha shulaamid ay weydiisay, waxaana uu gudagalay fikir dheer. kadibna waxa uu weydiiyey, qofka aad doonayso waa qof noocee ah? waxay u sheegtay inay doonayso shakhsi xiriir la wanaagsan la leh islamarkaana wax ka ogaan kara dhammaan hay-adaha Lubnaan, sidoo kalena ka mid ah ragga awoodda ku leh dhanka dowladda, balse shardiga ugu muhiimsanna ay tahay in qofka uu diyaar u yahay inuu aqbalo inay la shaqaysato. Yuusuf Kashka ayaa markaasi xaaskiisii ugu jawaabay, waa arrin adag, balse waan arki doonnaa. waxaana looga baahan yahay inaan taxadar weyn aan muujinno maadaama mawduuca markaani uu yahay mid xasaasi ah. halkaas ayaa lagu kala tegay iyada oo shulaamid markii wadahadalkii ninkeeda kala dhexeeyay ay kasoo faraxalatay ayaa waxay u boqooshay dhanka goob ay kula ballansanayd qaar ka mid a basaasiinta la doonayay in shabakadeeda ay qayb ay ka noqdaan, waxaana ay kala ahaayeen cali nusraad al cabdulaahi, maxamed xasan iyo taajirkii yahuudka ahaa ee aan hore usoo sheegnay ee albeer eliya, kaas oo shabakadda u qaabilsanaan doona dhanka maaliyadda iyo taakulaintaba. shulaamid markii ay la kulantay basaasiintaasi kana dhageysatay warbixinadooda ayay gooni u wada baxeen, iyada iyo sidoo kale taajirkii yahuudiga ahaa ee albeer. waxa ay gudagaleen inay ka wada hadlaan howlgallada cusub iyo muhiimadda ay leeyihiin, iyadoona shulaamid u sheegtay albeer muhiimadda cusub ee loo xilsaaray ee magaalada Rooma ay kala timid. albeer markaasi shulaamid waxa uu sheegay inay rajeynayaan in wax walba sidii la rabay ay ku dhammaan doonaan, waxaana shulaamid ay dhankeeda ay sheegtay in maalmahan ay aad ugu mashquulsan tahay helidda xubno cusub kuwaas oo qayb ka noqon doona shabakadeeda cusub islamarkaana la howlgalaya. albeer ayaa markaasi waxa kale uu sheegay in iyada oo kale arrimahani aysan ahayn inay ka walwalaan, isaga oo sidoo kale sheegay in la hubo in la heli doono xubno kale oo munaasab ah oo howlgalkooda la fuliya. markaas ayaa shulaamin waxa ay sheegtay in iyadana ay ballan ay soo qaaday taas oo ah in ay ka yaabsato muqaabaraadka wakaaladeeda, howlahana ay u qaban doonto xog walba iyo sidii ay ku heli lahayd. albeerna waxaa kale uu sheegay in dagaalkooda koowaad ay la galayaan carabta inuu yahay arrintan, gaar ahaana inuu yahay mid muqaabaraadka ama sirdoonka la xiriira, waana qasab buu yiri intii jismi ahaan aan daciifi lahayn inaan nafsad ahaan aan u daciifno. sidaasi awgeedna howlgalkoodii sirdoonka ahayd waxa uu sheegay inay noqon doonaan mid ay ku guuleysan doonaan shaki la-aan, iyaga oo dhanna ay noqon doonaan kuwa wada guuleysta.
markaas ayaa shulaamid koohin waxa ay sheegtay inay u muuqatay inay wax badan ay ka fahamsan tahay arrimaha sirdoonka iyo xaaladda taagan islamarkaana qorshahooda uu yahay sidii ay markaanay u dhaqangelin lahaayeen hadafkooda koowaad oo ah inay helaan xubno la shaqeeya. albeerna dhankiisa waxa uu sheegay mas-uuliyaddeeda inay tahay inay kasoo dhalaasho qasabna ay tahay sidii la baray inay uga soo baxdaa qaladaad kalena ay iska ilaalisa inay dhacaan. waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay inay wajahdo dhammaan halis kasta oo ka hor imaan karaya si ay ugu guulaystaan qorshahooda. markii xaalka halkaasi uu maraya ayaa ninkii lagu magacaabaya albeer waxa uu yidhi, maxaa aqbaar ah oo aad ka haysaa saaxiibka dowladda u shaqayn jiray ee sargaalka ahaa mise la xiriirta markii aad Rooma ka soo laabatay? shulaamid oo qoslaysa ayaa markaasi waxay ugu jawaabtay, kaasi weli Fortunia ayuu ku mashquulsan yahay oo caqligiisii siday doontay ayay ugu ciyaaraysaa. xagaag haddiiba sargaalkaasi meel aad ku hubsatay waa arrin wanaagsan, laakiin iska jir inaad siraheenna aad wax uga sheegto Fortunia, waayo waa gabar war badan. haddii aysan quruxda intaasi la eg aysan lahaan lahayna wax qiima ma lahaateen maanka taasi ku hay, marka waa halis inay sirteenna ay ogaato. gabadhaas hawsheeda dhan ayaaba ku eg in ay naga mashquuliso sargaalkaasi iyo qofkii aan u aragnay inuu nagu soo jeedo wax sir ahna kalama hadlo kalamnama socoto shabakadeenna. bravo, adiga waxaad mudan tahay mahadcelin. dhammaan yahuudda caalamka inay ku mahadceliyaan howlaha aad u qabato iyo ka shaqaynta aad ka shaqaynayso isu keenidda wax kaa muhiimsanna ma jiraan. intaasi kadib wadahadalkii iyo sheekaysigii labada dhinac u dhexeeya kadib ayaa waxa uu weydiiyey hantiday u baahan tahay inay ka hesho Israa'iil, waxaanay ugu jawaabtay in dhammaan ganacsatada yahuudda inay ka qayb qaataan. waxay ugu yeertay tabarucaadda si ay dadkooda ay ugu guulaystaan waxa ay doonayaan. shulaamid iyo taajirkii yahuudiga markii ay kala sheeka bogteen ayaa shulaamid waxay u soo booqooshay dhanka iyo gurigeeda, waxaana ay u timaaday ninkeedii oo xisaab dheer ku dhex jira. shulaamid waxay durbe ay weydiisay ninkeeda dhibka haysta iyo xaaladda taagan, waxaana uu sheegay inay jiraan mashaakil dhanka canshuurta kuwaas oo howlaha gaarka xitaa ay yihiin kuwa uga xayiran. markii uu ninkeedii u sheegay in mashaakilkaasi ama mushkiladaasi dhanka cashuurta ay haysato ayaa waxa ay weydiisay waxa loo baahan yahay si qorshahaasi loo fuliyo. yuusuf kashka ayaa markaasi waxa uu sheegay in biri uu doonayo inuu la xiriiro duqa caasimadda Bayruud oo lagu magacaabo Darwish Bayduun si ay ugu arkaan islamarkaana uga caawiyo arrintaasi. waxaana uu u sheegay inay tahay mid aanay isku murjin shulaamid oo ay ka seexato. shulaamid ayaa markaasi dhankii qolkeeda ee usii baqooshay iyada oo doonaysa inay seexato, balse waxaa usoo dhacay telefoonkii guriga, waana sargaalkii lubnaaniiska ahaa ee Fortunia ay mashquulinaysay. waxaana uu weydiiyey shulaamid isaga oo cod dheer ku leh, aawi Fortunia, muddo 2 saacadood ayaan guriga ku sugayaa, wax soo socdana uma jeedo, xagee ka baxday? codka sargaalka inuu dheeraa ka sokow waxaa laga dheehan karaya inuu qamri iska soo dharjiyey habeenkaasi oo idil. shulaamid ayaa sidaasi daraaddeed dejisay sargaalkii, waxaanay u ballanqaaday inay degdegay ugu keeni doonto Fortunia. kadibna waxay la xiriirtay Fortunia, balse gurigii waa ay ka weysay. waxay haddana ay ka raadisay guriga Rosed, isagana waa ay ka weysay. shuule Cohen xilligaasi taladii ayaa ku caddaatay oo sargaalkii oo sarqaansan ayaa soo wacaya Fortunia meel laguma sheego, waxaanay ogeed ahmiyadda uu leeyahay sargaalkan iyo inaysan marnaba aysan ka maarmin. sidaasi awgeed waxay istiri, caawa adiga ma u tagtaa? balse waa ay la noqon weysa, waayo waxaa macquula in sida Fortunia oo kale uu ugu dhego, iyadana waa qof howlo badan ay u yaalaan oo fursad aan u hayn. shulaamid xilligaasi si ay sargaalka isaga mashquulisho waxaa ku dhalatay fikrad kale oo ah gabdhaha Rosed mid ka mid ah inay u geyso, weliba da'yar 17 sano jir ah. Rosed waa mid ka mid ah basaasiinta u adeega lana howlgala shulaamid Cohen. sidaasi awgeed ayaa shulaamid waxay u go'aansatay basaasadeeda ama basaasiinta la shaqeeya mid ka mid ah inay wiilka ama sargaalkaasi ay ku mashquuliso. waxaana mar kale ay la xiriirtay Rosed iyadoona u sheegtay inay degdeg ay ugu baahan tahay gabar 17 sano jir ah, islamarkaana aad u qurux badan, aqoonna u leh sida ragga dareenkooda cirka loo geliyo loona mashquuliyo. markaas ayaa Rosed in cabaara ay fakartay, balse waxay gabdhihii ay mas-uulka ay ka ahayd ay ka dhex weysay gabar leh tilmaamaha ay shuule Cohen dalbatay. laakiin ugu dambeyntii waxaa qalbigeeda kusoo dhacay gabar ay habaryar u ahayd oo lagu magacaabayay Naadiin, taasi oo ahayd gabar dhalinyaro qurux badan, tilmaamaha shulaamid sheegtayna oo dhan lahayd ama usoo dhowaan kartay, laakiin 18 sano jir ah. Naadiin hore ayaa ay u soo guursatay, inkastoo ninkii yahuudiga ahaa ee mehersaday uu isaga tegay kadib markii uu ogaaday inay tahay gabdhaha suuqa ku jira. sidaasi awgeed Rosed waxay u aragtay jaanis wacan, waxaana ay gabadha u bandhigtay shulaamid.
waqti dheer kadibna sargaalkii waxaa lagu qanciyey inuu gabadhaasi waqti la qaato. markii sargaalkii ay qancisa ayaa durba waxay isku dayday gurigii Rosette inay aado, kadibna halkii ayay waxay ka soo waday Nadine. sidaasi awgeed Shulamit ayaa waxay awood u yeelatay in sargaalka ay xakamayso, gacanteedana uusan marnaba uusan ka bixin, sidoo kalena howlaha ay doonayso ay gebi ahaanba ka fuliso. markaana aan eegno Maxamed Ciwad iyo sidii ugu soo biiray shabakadda. waxaan horey idinkula wadaagnay in Shulamit Cohen ay ninkeeda ay weydiisatay sidii ay ku heli lahayd shakhsi mas-uul sare ka ah dalka Lubnaan, isla markaana siro badan oo dowladda Lubnaan usoo gacan gelin karaya, kaas oo si hoose ula shaqeeya, beddelkeedana lacag lagu qarqiyo. haddaba Yuusuf Kashka maalintii xigtay markii uu aaday guriga duqii caasimadda ee Lubnaan ee Beirut, ninkii lagu magacaabaya Darwiish Bayduun ayaa waxa uu kala hadlay mushkilad ka haysata dhanka maaliyadda iyo canshuurta lagu haysto, taasi oo laga rabo badeeco Yuusuf usoo degatay. si xal loo helo arrintaasi wuxuu Darwiish Bayduun u la xiriira mid ka mid a ragga ugu sarreeya magaalada Beirut, isla markaana ka howlgala xafiiskiisa, isaga oo ka dalbaday inuu xalliyo mushkiladda haysata Yuusuf Kashka. Yuusuf Kashka wuxuu tegay xafiiskii sargaalka lagu soo xiray, kaasi oo la oranaya Maxamuud Ciwad, waxaana uu u bandhigay mushkiladda haysata, balse Yuusuf Kashka wuxuu ogaaday in sargaalkani wax aanan laaluush ahayn uusan ku shaqaynin, waayo markii howsha uu u dhameeyey ayuu ka qaatay lacag gaaraysa 1,000 dirham oo uu ku magacaabay hadiyad inay tahay, balse laaluush iska ahayd. Maxamuud Ciwad waxa uu shakhsi ahaan uu ahaa dooni raac, misna hantida aad u jecel, sidaasi daraaddeed musaqa caado ayuu u ahaa. Yuusuf Kashka wuxuu daraaseeyay arrinta Maxamuud Ciwad, wuxuuna dareemay inuu yahay shakhsigii ku habboonaa Shulamit Cohen, kaasi oo ay raadin jirtay misna howlaheeda ay ku fulin karto. Maxamuud Ciwad wuxuu ahaa nin da'da 40aadka sii cagacagaynaya, isagoo sidoo kale ahaa mid aad u gaaban. waxaa intaasi usii dheereed inuu ahaa shakhsi buuran, dhanka dabeecad ahaanna wuxuu ahaa mid hunguri weyn, isla markaana hantida jecel, sidii uu ku heli lahaana waddo kasta u mari karayo. sidaasi daraaddeed waa shakhsigii ay u baahneed Shulamit Cohen. Yuusuf Kashka markii uu dib ugu laabtay guriga ayuu uga warramay Shulamit Cohen isaga iyo waxyaabihii uu soo arkay. waxaa kaloo uu kala hadlay arrinta Maxamuud Ciwad, isagoo u sheegay inuu yahay qofkii ay raadinaysay, qof kaga habboon howshaana uusan jirin maadaama uu yahay nin awood ku leh magaalada Beirut, sidoo kalena damac lacageed uu ku jiro, wax kastaana u samayn karaya damac lacageedka isaga haysta. sidaasi awgeed ayaa Shulamit Cohen ugu jawaabtay Yuusuf Kashka in ninkaasi uusan kasii deynin, islamarkaana usoo xerogeliyo, iyadoo ugu sii dartay in maalin guriga ay ku marti qaadaan si ay isu bartaan, islamarkaana howsha loo guda galo. Yuusuf Kashka wuxuu maalmo kadib booqasho uu ku tegay xafiiskii Maxamuud Ciwad, isagoo ugu mahadceliyay howshii uu u fududeeyey, wuxuuna intaasi u raaciyey: xaaskayga sidoo kale aad ayay kuugu mahadcelinaysaa, waxayna kuugu casuuntay martiqaad ay kuu fidisay, sidaasi awgeed waxaan jeclaan lahaa inaad guriga nagu soo booqatid. Maxamuud Ciwad oo weli carabkiisii ay kasii dhadhamaysa lacagtii laaluushka ahayd ee uu ka qaatay Yuusuf Kashka ayaa ugu jawaabay: tani waa waajibna saaran, una sheeg xaaskaada inaan dalabkeeda aan aqbalay, casuumaadana aan imaan doono. waxaa laga yaabaa inaan iyadana aan u fududeeyo howlaheeda gaarka ah ee ay u baahan tahay in wax lagala qabto, sidaan kuu caawiyo ayaana u caawin doonaa. Yuusuf Kashka oo dareensan in Maxamuud Ciwad uu si tartiiba ugu soo dhacaya shabaqii uu u dhigay, ayaa waxa uu ugu jawaab celiyay in ay sugayaan maalinta biritaa, gaar ahaan galabnimada, isla markaana ay ku sugayaan meel lagu ballamiyey, waxaana uu rajeeyay inay ka soo qayb gali doonaan. waxaana Maxamuud Ciwad uu ku jawaab celiyey: haddii tani ay tahay rabitaankaada iyo rabitaanka xaaskaada, dabcan dhankayga waan idin imaan doonaa, mana jiraan wax ii celinaya, waana idin soo booqan doonaa berri galab. yahuudkii Yuusuf Kashka ayaana markaasi waxa uu sheegay inay rajeynayaan in kulankaas iyo casuumaadda uu noqon doono bilowga saaxiibtinimada dheer ee iyaga isku xiraysa. Maxamuud Ciwad kaliya marka laga yimaado shakhsiga damacsanaanta dhaqaalaha aad ku tiro badan, sidoo kale wuxuu ahaa shakhsi aad u caqli badan, kaasi oo sidoo kale aqoon u leh sida lacagta looga daasada jeebabka lacagleyda. Maxamuud Ciwad markii uu yahuudigii ka tegay ayaa waxa uu galay durba fikir dheer, wuxuuna bilaabay inuu naftigiisa isweydiiyo: maxay tahay sababta ay yahuudan ay kugu doorteen? maxay tahay waxa ay kaa dooni karayaan? Maxamuud Ciwad waxa uu bilaabay inuu wax ka ogaado xaalka naagta uu qaba Yuusuf Kashka ee Shulamit Cohen, isaga oo baaritaan dheer kadib soo ogaaday inaysan shakhsiyad caadi ah aysan ahayn. inkastoo Maxamuud uu ku dhawaaday in uu ogaado xaqiiqda Shulamit Cohen iyo waxa ay ka damacsan tahayba, haddana wuxuu is yiri: waxay doonaanba ha ahaadeen, beri ayaad ogaan doontaa markii aad casuumaadooda aad tagtid.
shuule Cohen dhankeeda waxay aad uga fakaraysay qaabkii ay Maxamuud ay kusoo xirigelin lahayd waxaana ay galabtii ay balanta u diyaarisay qamri nooca wiskiga la yiraahdo iyo sidoo kale raashin kala nooca misna aad u macaan waxaana intaasi u sii dheeraa in goobta ay kusoo xaadirisay 3 ka mid ah gabdhihii ugu quruxda badnaa ee xaafadda Waadi Abu Jamiil iyada oo doonaysa in kulanka uu ahaado mid jawi degan ku dhamaada si fududna la isku fahmo sidoo kalena Maxamuud Ciwad dhinac kasta laga raali geliyo si uu ugu dambeyntii uu shabaqa ugu soo dhaco ka hor inta uusan Shulaamid Cohen u imaanin Maxamuud Ciwad waxay la xiriirtay yahuudigii taajirka ahaa ee Albert Iliya iyadoo uga warrantay xaaladda taagan iyo inay gacanta ay ku dhigtay shakhsigii awoodda lahaa ee ay raadinayeen waxaana u sheegtay in galabtaba ay ballansan yihiin isla markaana ay doonayso inay soo xirigelayso halka inoo joogto qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan Shulaamid Cohen waxaan u mahadcelinayaa saaxiibkii Cabdiraxmaan Xasan Anteeno oo afka hooyo ku tarjumay buugan waxaana qoray Xaatim Quuri qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo